xukuumadda Soomaaliya ayaa si adag u cambaaraysay weerarkii lagu qaaday dugsi lagu tababaro ciidamada booliiska ee Soomaaliya ee ku yaala magaalada Muqdisho halkaas oo markii la weeraray ciidamada booliisku ay sameynayeen dowlatus ciidamada booliiska wariyaha telefishinka RTN ee magaalada Muqdisho Ibrahim Xaaji Yuusuf ayaa ka waramay kulanka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo toddobaadkii mar ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho waxa maanta hareeyay anjantayaal ay kamid yihiin qaraxii aroortii hore lagu weeraray xarun lagu tababaro ciidamada booliiska Soomaali ku xiran dalka Seychelles iyo baaqashadii ku timid ciyaaraha maamul goboleedyada ee ka socda magaalada Muqdisho kulanka markuu soo dhamaaday waxa warbaahintu u sharaxay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay maanta ay ka doodayeen wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un horta maanta waxaan markuu hore ay wasiirada golaha wasiirada loogu tacsiyay dhibaatadii saaka ka dhacday dugsiga tababarka booliiska General Kahe nin ciidan waxaan u soo labistay inuu isku qarxiyay ciidanka isu diyaarinayay inay feel galaan ilaa haddana waxa la soo xaqiijiyay inay 17 qof ku dhimatay 17 qofna ay ku dhaawacmeen intii dhimatay waxaan Ilaahay ugu baryaynaa inuu Ilaahay jannadii ka waraabiyo cayraadkooda iyo familkooda inuu sabir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo kuwa dhaawacaan waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay shaafic degdeg u siiyo Ilaahay caafiyo marka waa arintaas waa arin dhib leh qaybaha booliiska ay ku qaabilsan baaritaanka ayaa dabagal ku sameynaya in magac la yaqaano ayaa loo soo sheegay qofka qarxiyay wixii faahfaahin dheeraadana markay howlahooda soo dhamaadaan ayaa lidin soo socodsiin doona haduu Ilaahay raali ka yahay marka taasaan rabaa in ku bilaabo maantana ciyaartii ka dhici lahayd garoonka Stade Konis waxa loo baajiyay in lagu ciiso dadkii geerida soo gaartay galmudug iyo Jubbaland ciyaar ka dhici lahayd ciyaartaasna waxa ma go'aan lagu gaaray in dib loo dhigo si ixtiraam ah dadkaas saaka ku shiiday iskool booliisiya waxa kaloo laga hadlay ugu weynaa waxay ahayd in ay ciidamada booliiska ay soo bandhigeen isu diyaar garowga marka ay ciidamada AMISOM ay wadankan ka bixi doonto oo shaqadeeda ay socotay shirkii hadda qabsoomay bishii 4teedii ahaa looga hadlayay operational readiness assessment ayaa golaha wasiirada la soo hordhigay maanta kadib waxa warbixin laga siiyay maxaabiistii Seychelles oo wasiirka wasaaradda cadaaladda maanta ma soo joogin wasiirka wasaaradda dawlaha arrimaha dibadda oo naga siiyay taasno iyadana ay guul ka soo hoynay 7 qofood ayaa la keenay shalay oo Seychelles laga soo gudbiyay hal qof waa u dhamaatay muddadii xirnaanshihiisii waa la sii daayay Ibrahim Xaaji Yuusuf RTN TV magaalada Muqdisho.